kooxda Liverpool toddobaadkan kaliya ma aysan ahayn kooxda hogaaminaysa horyaalka Premier League balse Liverpool waxay sidoo kale toddobaadkan ahayd kooxda hogaaminaysa insaaniyadda kooxaha kubadda cagta ee dunida iyadoo aan ognahay Liverpool inay kaalinta koowaad kaga jirto kooxaha ugu waaweyn adduunka khaasatan kuwa ka ciyaara horyaalka Ingiriiska ee Premier League kabtan kooxda Liverpool Van Dijk iyo weeraryahanka muslimka ee kooxda Liverpool Mohamed Salah ayaa waxa ay si lama filaan ku booqdeen wiil yar oo la xanuunsanaya cudurka loo yaqaan wolf ama genetic disorder oo ah cudur dhif naadir ah oo ku dhaca dadka xilliga ay yar yihiin qaarkoodna ku dhasha cudurkaas oo sababa qofka inuu sidii rabay uusan u korin ama inuu sidoo kale gaarin xilligii uu noloshiisa ay gaari lahayd waxa cudurkaas sidoo kale uu sababa xanuuno kala duwan sida xanuuno ku dhaca wadnaha iyadoo wiilkan yarka ee jirka ee qaba baahiyaha gaarka uu maray khaliimo aad iyo aad u kala duwan xitaa mar loo xisaabiyay inuusan noolaa karin haddaba khaliimadaas faraha badan wiilkan yarka ma aysan hor istaagin jacaylka kubadda cagta uu qabo iyo sidoo kale dhoola caddeynta markay Liverpool ogaatay wiilkan taageeraha uu yahay ayaa si surprise ah tankeeda wuxuu ku booqday iskuulkiisa waxaana uu ku dhahay adiga ma tahay qofka Liverpool taageera ee gitaarka ciyaara yani taageeraha dhabta ah wiilkii yara gacantu taagaha hooyay markaasuu yiri yaa kula hadlaya Allah markaasuu yiri Van Dijk ay la hadlaya kadib Van Dijk wuxuu dhahay si kale surprise ah ku sameeyaa oo qof kale oo aad la yaabi doonto ku keenay halkan kugu cusub markaasuu yiri ha markaasuu Van Dijk wuxuu ka soo wadaa banaanka Mohamed Salah markii uu soo galay wiilkii yar wuxuu dhahay Mo Salah sidee tahay way soo boqotay kadib wiilkan waxa lagu cusumay xirada tababarka ee kooxda Liverpool sidoo kale wiilkan waxa lagu cusumay aqalka ama hoyga kooxda Liverpool ay ku nooshahay waxaana halal uu salaamay dhammaan ciyaartooyda isagoo ciyaaryahan walba u yeeray magaciisana ku dhawaaqay dhammaan ciyaartooyda Liverpool ayaa yaabtay markay arkeen wiilkan lix jirka iyo sida uu jacaylku u qabo kubadda cagta waxay dhahaan kubadda cagta oo wax ka badan in la ciyaaro waayo waxay nolol u tahay ama ay farxad u tahay malaayiin ruux oo ku nool dunidan waxay sidoo kale rajo u tahay dad fara badan oo adduunyadan ku nool dhanka caafimaadka wiilkan yar sidoo kale wuxuu la kaftamay macalinka waxaana uu la ciyaaray qaar ka mid ah ciyaartooyda Liverpool oo qaarkood uu ka saaray tuundheer kadib wiilkan intaas ma uusan looga keenin waxa sidoo kale lagu casuumay kulankii kooxda Liverpool ay ciyaaraysay iyadoo markaasi uu ahaa mascot waxaana gacanta soo qabtay Captain Fan oo garoonka soo galiyay kadib wiilkan waa sii watay farxadiisa waxa la arkay kulan ciyaareedka ugu dambeeyay Liverpool iyadoo wadanka Ingiriiska uu ka jiray fog wax loo yaqaano qabow iyo sidoo kale ciyaaryaamo isla socda isagoo taagan garoonka oo daawanaya ciyaarta waayo waxa halkan ka soo baxday in markasta uu tago garoonka wiilkan yar uu nala socdo dhammaan ciyaaraha kooxda Liverpool Isaac oo hadda ah 6 jir ayaa noqonaya mid ka mid ah taageerayaashii ugu wanaagsanaa ee soo maray dunida kubadda cagta waxaana uu ka oysiiyay muuqaaladiisa kumanaan ruux oo ka daawatay baraha bulshada iyadoo telefishinadana ay ka sameeyeen warbixino kala duwan waxaan jeclaystay Liverpool inay u qareenay tahay koox ka mid ah kooxaha ugu wanaagsan adduunka xagga bini'aadanimada iyo xagga horumarka intaba hore waxaan aad ula dhacay markii aan booqday garoonka Anfield oo aan ku arkay jawiga iyo taageerayaasha jacaylka ay u qabaan markalena Isaac ayaan ugu mid noqday dadka sida qaaska wiilkan baahiyaha gaarka qaba u taageersan iyo sidoo kale jacaylka uu kubadda cagta u qabo anigoo markasta la socda dhaqdhaqaaqiisa iyo sidoo kale kulanka ciyaartooyda kooxda Liverpool waa koox aad u weyn runtii waa koox aan dhigi karo kooxaha adduunyada ugu saameynta badan oo malaayiin ruux oo dad ay ku xireen ay ka mid tahay aad baa idin salaamay